بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته wuxuu darsigu ku saabsanaan doonaa hore iminka bilaabmaya insha allahu tacaala mowduuc ku saabsiisan mas-uuliyat alwaalideyn tijaah alabnaa aw ihmaalu tarbiya waxaynu dhahnaba waalidka wax dhalay iyo mas-uuliyaadka saaran markay noqoto dhashiyo korintooda waa masalo in badan laga hadlo wax badan baa aragteen walaad ka warramaya carruurtiiyo kobcinteeda carruurtiiyo barbaarinteeda carruurtiiyo haddana soomaalidii dabadda u soo baxday ku guulaysan kari weydi maxaa qaldan xaggee wax iska qaban la'yiin nusuus badan la akhri axaadiis badan la sheeg aayaad badan oo qur-aana la tilmaam wasaa'il badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo sugnaatay la tilmaam welina maynan ku guulaysanin farsamadan inuu samayno su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan markaa xaggee wax ka qaldan yihin ugu horeyn waa ognahay carruurtu inay hiba min allahi tay nicma ilaahay uu dadka ku galladaysto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa yahabu liman yashaau inaathan ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير في سورة الشورى إلهي وحولي عدو الدونا وحقوق الله دايستا هبله عدو الدونا وحقوق الله دايستا سيا ويلل عدو الدونا إلهي سبحانه وتعالى ويسوق الدرا عدو الدونا نوك قضية cidda laga qadiyey baa garanaysa nicmada carruurtu intay leegtay waxaynu wada naqaanaa qofka hore wax u dhali waaya werwer badan inuu ku dhaco rag iyo dumarba inuu raadiyo qaab kasta oo la yidhaahdo waxbaa lagu dhali karaa haddii dunida dabadeeda dhakhaatiir lagu sheego iyo haddii mid tacwiidaad qoro faatixadiisa lagu dhalabaa la sheego cid walba in loo tago iyadoo laga cabanayo muddaanu isqabnay muddaanu wada joognay carruur baanaan haynin ee waxaan rabnaa sidii aanu carruur u dhali lahayn waxaad ka garan kartaa ilaahay ambiyadiisii oo warwarkaasi hayo oo ilaahay baryaysa nebi ibraahim oo maxay leh rabbi hablii min alsaalixiin waa nebi ilaahay doortay haddana ilaahay baryaya in kuwa saalixiinta wax laga siiyo waxaynu qur-aanka ku arkaynaa nebi zakariya leh rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayiba innaka samiicu ducaa idan waa hami bini aadamku uu wadaago ambiyada saalixiinta ah waaweynaa ilaa iyo ayi bashar dunida soo mara uu jecelyahay inuu wax dhalo laakiin waxa isweydiinta leh ilahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay inuu nicmo yahay almaalu waalbanuuna ziinatu alxayaati addunya carruurta iyo xooluhuba waa adduunka quruxdiisa ilaahay ku tilmaamay kaanamaa quruxda aada la'dahay haddii faqrigu kugu bato kaanamaa aad quruxda la'dahay haddaad wax dhali weydo dabeetana waxaa la yidhi xoolaha iyo carruurtuba waxay yihiin maxay ziinada nolosha waxay ka mid yihiin shahwaatu nafs zuyina linnaasi xubu shahwaati min annisaai waalbaniina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث إلهي وحينات المام والأنعام والحرث وحاصر من النعمة إنساك وحو تشعلي ينيت إذا هو النعمة لكن نمعول به ومسؤولية دم كلامك لقاه نمعضو وفتن إن أدمهدنا قضية إن أدمهدنا قبل وإيجي maalku waa nicma laakiin xagga kalena waa fitna carruurtu waa nicma dhanka kalena waa maxay waa imtixaan waa fitna
haddii mas-uuliyadaasi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara waa mas-uuliya markaa waa mas-uuliyad waa mas-uuliyad ilaahay inta badan inta aan laynagala dardaarmin carruurtu inay inoo samafashaa waalidka waxa lagala dardaarmay inay iyagu samafalka ku horeeyaan yuusikum allahu fii awlaadikum ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leey walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq carruurtiina ha u dilina gaajaa ka baqaysaan dilka midi waa dil kow lagaga siiyo midina waa dil adabiyo ka sii daran waa qofka caqiidiya diin la-aan aad baddo aad dayacdo kafaa bilmari isman wuxuu nebigu ku tilmaamay an yudayica biman yaquud qofka bini aadamka waxaa dembi ugu filan inuu dayaco cidduu wax siinayey cidduu korinayay waa ammaano aakhire layna weydiinayo in allaha yaamurukum an tu'addu alamaanaati إلى أهلها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأمانة آخر لين ويدينيو مع كل ذلك وإنو كسو بحكري وين حقاي وحكا حمي حان لانا هاي ugu horeyn marka koowaad waa laba mid إما إنay qiimayntii uu mudnaa aynan siinin bini aadamkuba aanu qiimayna la lahayn iyadoo asliyan la og yahay dunida waxa kor saaran waxa ugu qiimo badan leh qofka bini aadamka saa daraad bay dowladaha dunida nooli ee jira waxay isku dayeen inay dar yeeli karaan aadanahooda wax bari karaan waayo qofka bini aadamka iyo kobcintiisa ka qiimo badan gantaalaha iyo dayuuradaha iyo kombiyuutarada iyo waa isaga sameeya ummadii ku guulaysan weydaa inay dad soo saartaa kuma guulaysato hoggaanka bini aadamnimo walow lacag badanna ha haysatee day lacag wax tarayso dee muslimiinta maanta ayaa ka lacag badan khaliijka iyo meelaha kan tan dhulka laga qodo way soo dhuraan dhulka laga qodaa laakiin ma dhalin aadanihii loo baahnaa ma soo bixin waa layna gumaystaa ma aha in laynaga tiro badan yahy ma aha in laynaga xoolo badan yahy waxa weeyaan insaankii loo baahnaa baynu soo saari kari weynay qualitygii qofka bini aadamka aynu u baahnayn insaankaynu qiimayn kari weynay walidaalika waxaa laga yaabaa inuu aabbuhu ama hooyadu ama dadku kaga mashquulaan baa lacag la xoojinayo lacagtu qiimo ma leh haddaad lacagta ugu badan uga tagto qiimo ma leh wuu baabi'in haddaad qof qiimale ka tagtana isagaa hantiya isagaa isku filan tujaarta lacagta badan dhaqda ee carruurta halmaamtaa adduunkoodu intuu ka dambeeya xataa adduunku intay dhimanayaan unbuu sii joogtaa hantidu markuu dhinto dadka ka taga aadane nooloo waxgaradina loogama baqayo inuu gaajoodo ama luma cameynkan inaad qofka dhistaaba ka muhiimsan maxay inaad hanti uga tagto idan waa inaynu marka hore fahmnaa qofka bini aadamka iyo qiimuhu inagu joogo haddaanu inan qiimihiisa garanin wakti iyo hanti iyo xoog ma gelinayno kobiciisa iyo barbaarintiisa wuxuu inala noqonayaa shay thanawiya shay secondarya shay aan mudnayn wax badane inaad 8 saacadood soo shaqaysaa inay ka mudan tahay inaad 8 saacadood ilmaha siiso kaasi waa mid qodobka labaad ee waxaynu wax soo saar u yeelan waayo waxa weeyaan waxaynan aqoonin sida wax loo rabeeyo ama sida wax loo kobciyo weliba inagu ka Soomaali ahaan bini aadamku waa cilmi dhan oo la barto ka cilmi ahaan waana fanni tadriib oo qofka aan theoretical qura loo barine lagu tababaro laakiin inagu ka Soomaali ahaan mushkiladda ay haysataa waxay tahay waxaynu u noolayn dad homogeneous group kama taqaanay bulshada aan fawaariqda lahayn waxba ku kala gedisnay
dad isku midaba, isku afa, isku dhaqana, isku diina, ma ee diinta ka kale isku madhaba, fiqiga madhab qura ka wada haysta, waxay ku kala gedisay inaanu jirin. marka ilmaha kaliga adigu maad barbaarinayna, waxa barbaarinaya maxay? waddan dhan iyo dadka ku nool. macallinka iskuulka dhiga isku wax aaminsanaydeen oo muslim ahaa oo caynkan ahaa, ka dugsi qur-aanka dhiga isku wax aaminsanaydeen, ka suuqa jooga isku wax aaminsanaydeen, ka dukaanka haysta isku wax aaminsanaydeen, ka jaarka aad tihiinba isku wax aaminsanaydeen, ilmuhu kuula cayaaraya isku wax aaminsanaydeen. marka caqliga soomaaligii wuxuu ku soo urursanaa hal wax. muxuu ku urursanaa? ilmahaagu yuu gaajoonin bes. caqliga soomaaliga wuxuu ahaa ilmahaasi wuxuu cuno iyo wuxuu huwado iyo wuxuu xidho yuu waayin. aabbuhuna intaasuu ku maqnaa. markuu soo xoojiyana islaantuna intaasay waday inay u kariso, u maydho, u hagaajiso, u qubayso. laakiin markaynu nimi dhul loolanka nololeed everything uu yahay, wax kasta bini aadamku ku loolamayo, mabaadi'da la rumaysan yahay, caqaa'idda lagu dhaqmayo, diinta la qaadanayo, qaabka loo noolaanayo, luqada lagu hadlayo, sida loo fakerayo, wax waliba loolan galeen, waxaynu noqonnay dadkii ugu horreeyay ee dumaha. sidaa awgeed tarbiyada la sheegaya waxa weeyaan waa qof bini aadama kobcintii iyo barbaarintii. maxaa la kobcinayaa? mawaahibta ilaahay siiyey. adigu waxba kuu dari maysid qofkan, ilaahay baa siiyey mawaahibtan, laakiin waa loo barbaarinayaa. ininta geedkaa markaynu beerayno, ininta ma waxbaynu ku daraa? maya. ininta waxa ku jira ayay waxaynu isku daynaa waxaan dabadda ka joogaa inaanu dhibin, iyadana in la siiyo fursaddii ay ku bixi lahayd. ininta dhulkaynu u faaqfaaqnaa, dhirtaynu ka jarraa, waa carra rognaa, fertilizers baynu ugu darraa, biyaynu ku waraabinaa, meel cadceed laynu u dhignaa, laakiin iyada waxba kuma darro. insaanku waa sida ilaahay u abuuray. isagaa khayrka iyo sharkaba aadi kara, isagaa quwadka awoodahan oo dhammi ku xidhan yihiin, laakiin waa ta la kobciyo kolba. haddii la barbaariyana si fiican buu u barbaarayaa, haddaan la barbaarinna khabta cashwaa'iya, si kuday oo kuf oo kac oo kuday oo kuf oo kaca buu u barbaarayaa. barbaarintu waxay la mid tahay sida cunnada iyo dawada. cunnada qofka bini aadamkii si isu dheeli tiran inuu u koro waxa la siiyaa maxay? cunno isu dheeli tiran. socankaa maaha. cunno qura miyaa qofka la siiyaa? waa loo badbedelaa si uu wixii uu baahnaayoo dhan uu heli karo, soo si fiican u horo. haddaad hal cunno qura siisa ka waran, gaajada qofka waad ka beenaysaa, berisumaad ka dhaamisaa habeen iyo maalinba. maxaa soo baxaya? yacni nolosha badh buu waayayaa. idan tarbiyadu waa sida, wax qura qofka lama siiyo. mawaahibta ku jiro oo dhan baynu rabnaa inaynu soo saarno. caqli hadday tahay, hadday ruux tahay, hadday jasad tahay, hadday wax walba tahay, mawaahibtiisa oo dhan baynu rabnaa inaynu soo saarno. inxiraafaadkana inaynu ka wada ilaalino. dawada intee in leeg baa laysa siiyaa? se nooc qura dadka loo wada quraa? maya. qofka xanuunka hayaa la eegaa, dabeetana qof walba daawo gaaraa loo qoraa. dawada loo qorayana dosage baa laga siiyaa. waxaa la mida wax allaaliyo inxiraafka, qallooca qofka gala ee laga dawaynayo o dhan baa la mida. innagu qalloocoo dhan budh iyo dagaal baynu haysanaa, wax kalaynu naqaanaa. inankii waa yaro xumaaday, baryahan waa loo taag waayey. dagaal iyo huruf inaad ku bilowdo iyo inaad garaacdo, wax kale miyaad u garanaysaa? haddii uu maqli waayana waa inaynu kusii badinaa uun. marka innaga dhibtayna haysataa waa labadan dhibood. midi waxa weeyaan, weli waxaynu u fikeraynaa sidiioo aad tolkaa iyo reerkaa iyo tuuladiinnii deganti ee meel rag isku haya inaad timiba ma rumaysinid. midina waxa weeyaan, marka horeba sida wax loo barbaariyo ayaa wax badani maxay inaga qaldanaya. insaan
sidiisa u rabshadii ma jiro waa insaan aad fahmi weyday ilaahay wuxuu leeyahay laqad khalaqna linsaana fi axsani taqwiim baa ilaahay qur-aanku yidhi aadanaha waxaan u abuuray sida u qumman baa loo abuuray fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laakiin walaqad karamna bani aadama ilaahay insaanka waa karaameeyey abuur fiican buu siiyey axsanu taqwiim buu ka dhigay laakiin alwasaa'il alkhaarijiya waxyaabaha dabadda kaga yimaada ama asfal saafiliin geeya ama maxay acla alcilliyiin qabadsiiya sawgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa maa min mawluud ilaa wa yuuladu cala alfitra abuurkiisu waa saxan yahy waa mid habaar qaba iyo waa mid inkaar qaba waxaas ma jiraan waa mid khayr qaba dhammaantood laakiin waxa dabadda kaga yimi ayaa ka dhigay ama mid shar badan ama mid khayr badan mid saxniin badan ama mid qalad badan mid si fiican u fakeraya ama mid si xun u fakeraya mid mu'mina ama mid gaala saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qof waliba isagoo quman buu dhashaa ee labada waalid waa environmentka ugu khatarsan ee aadanuhu uu ku soo koro ee koowaad labada waalid buu nebigu leeyahy lama odhanin bii'ada dabadda waxaa la horumariyey maxay labada waalid baa ka dhiga buu nebigu yidhi yahuudi ama nasraani ama majuusi sida xooluhuba ay u dhashaan iyagoo aan dhukanayn dhagahooda wada qaba laakiin bini aadamkaa jarjara xoolaha marka dambe oo dhagaha qaarna u yaryareeya qaarna dacala u yeela qaarna fur u yeela qaarba si u gala sida xooluhu iyagoo dhagahooda qaba u wada dhashaan buu bini aadamku isagoo quman u dhashaa laakiin dhagaha cidda googoyse sida tan u gashaa waa aadanaha buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qur-aankana ilaahay wuxuu leeyahy wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya alculumaat alxisiya tajaaribta culumta laga kasbado idinku aan waxba ka aqoon ayaa hooyadiin idin dhashaa buu nebigu yidhi ayuu qur-aanku leeyahy wajacala lakum alsamca walabsaara walafidata lacalakum tashkuruun ilaahay markaa wuxuu idin yeelay wasaa'ishii aqoonta lagu kasbanayay ee maqal leh ee arag leh ee quluub leh lacalakum tashkuruun ay kay tashkuru sida rabbigiin ugu mahad celisaan laakiin haddii kuwa si qaldan loo adeegsadana insaanku wuu lumaya haddii si saxa loo adeegsadana wuu lumaya walidalik bay culamadu waxay idhahdaan ibnulqayim raxmat ullahi calayhi baa wuxuu leeyahy ida اctabarta alfasaada fi lawlaad ra'ayta caamatahu min qibali ilaabaa buu yidhi haddaad aragta buu yidhi ilmo xumaaday inta ugu badan buu leeyahay xumuhu waalidiintu ka yimi inta ugu badan xumuhu waalidku ka yimi haddaba ilmuhu meelahan aad joogtaan markuu yimi taxadiyaad baa yaalla challenges iyo casrigan cusub ee la nooliyay challenges aad u tiro badan oo ah xumo dhammaantii oo la faafinayo tv leh internet leh video leh mobile leh waxa la hayoo dhan leh schooling systems leh manaahij loogu talagalay oo aanad adigu dhiganin leh jaar iyo xaafad dhaqan kala wata leh wax badan buu la kulmayaa ilmuhu waxa uu la kulmayoo dhanna ma haysto tatciimka soo ma taqaaniin vaccinationku tallaal qofka tegaya meel khatara matala meel tibaydu ku badan tahay haddaad tegayso ama yellow fafa ku badan yihi ama habitat ku badan yihi qofka ka shaqaynaya waxaa la yidhaahdaa ha la tallaalo si markuu bii'adaa dhex tago ximaayadiisa difaaciisa jireed uu xoogsanaado insaanku wuxuu u baahan yahay mawaahibta iyo waxa wanaagsan uu leeyana in la barbaariyo waxa xunna in laga tallaalo laakiin haddaanu waalidkuba aqoon sida wax loo tallaalo haddaanu aqoonin sida loo kobciyo qofku awoodaha alla siiyey
ilmuhu suu ku guulaysanaya markaa أحد العلماء عصورة النولة كم إذا علماء التربية أني ما كنت تخصصي دكتور إبراهيم الخليفي أيا وحو إلى هذا عصر كان وحي نوبة هن يقولي رخصة قيادة الوالدين لبحية بيولي ليسن كوالد نما ينقفك الله سيبو يولي انت آنو قريقلين وإلا بولي هي إسنو تشبايا عرورتنا ويشبايسا ليس كوالدني ما وامحي ودننا المسلمين تاين دايرتا ودن كميدا ايا وحو بطاي فريتانكا aroos baa la dhigaya wumba la isfuraya aroos baa la dhigaya dadkii furisti dawladdu waxay tirisay wuxuu jiraa dawladdu daraasad markay sameeyeen waxay yiraahdeen dadku iyagoo aan la barin guurka iyo waxa ka ratibmaya iyagoo moodaya meeshu sagas inay tahay in la tunto wiilkiya gabadhu inay tumanayaan iyagoo moodaya ayay guri galaan dabeetana maadaama aqoon darradaasi ay jirto wada noolaanshiyahooda cidhiidhi noqda waayo laba qof laba guriyo kala dhaqana kala jara kala nooca qaab looga kala noolabay ka yimaadaan inta badan markaa waxa kaleesh ka dhaxdhaca bay yiraahdeen labadan qof ay isu yimid furitaanka ugu badan laba yiraahdaan 6 bilood ugu horeeya ama sanadka ugu horeeyo dhaca waxa xalabay dawladdu Swedish waxay dawladdu garatay markaa waxaynu sameynaynaa in course la siiyo qof kasta oo guursanaya qofkii kooraska soo qaata ee shahaadada qaata dawladdu waxay ugu deeqaysaa arooska waxa ku baxa lama odhanin qasab lagu meherin laakiin waxa weeyaan heli maysid macuunadii dawladda oo ah in guriga iyo wixii kaaga baxayo dhan kharashka in lagu siiyo heli maysid haddii aanad qaadanin maxay kooraska inaad soo qaadan kooraska marka lagu dhigo liisan baa lagu siinaya sheegaya inaad u cuntanto inaad guursato وشهادة شهادة جامعات كما قالتان أما شهادة دروال لما سو قادت الليسان شيء إن تقوارد ذاك حين كرتو والليسان شيء إن تغير وذي كرتو إن تغير نقون كرتان أيها القصاصين يا ليسان كي مركو وقفكو قاطو دتكو مركو هوري أنت بدن لو مقالان علمي قاعد برتي ده وحو قال ده إنه هلا شنطة كون الدولار أما اللي كون الدولار الدولة ده أي جوري قلب كيالي وحرنا كودي جيسو مركا قفولي بس يجوري جوه هلا كورسكا بيش أبو سوق عادنية كورسكي مركا يسوق عاتين سي أوتوماتيكا بفريتان كي هوس ورد عيودكي هاي دولة دكو جولي ستة مركا إنا يرايسو فرستي هوس ودايس وحصاب بحضي إنا وحنا أقوان ضرين تهدا بديني كينساني سي وحلقا مار مكاري لها هدي دادك اللبرو إنو جولي ستو نكا خبير كان مسلم كي وحو ليه هاي sida gaariga loogu qaato buu leeyahay darawalka liisanka loogu qaato baynu u baahanay in ilmaha kasta ee guursanaya ama qoys kasta oo wax dhigay qoysnimo sameynaya rag iyo dumarba in la siiyo liisanka waalidnimo buu leeyahay wa illa hadaanu liisanka qaadanin buu leeyahay isna wuu dhib mudanaya ilaa waxaanu garanayn buu wadaayay ilmuhuna wuu ku dhib mudanaya ilmuhuna mushkilad ba haysata waalidkuna isna waa xiqsan iyo juhdi iyo awood iyo xooguma baqanin wuxuu bay la mid tahay buu leeyahay niman darawal noqon oo leeyahay gaariga ka xee isna waa dhib mudanaya de maalinba darbu jeedaya maalinba shil buu galaya dadka kalena khatar buu galinaya ilmahana dhalaysa hadaan la tarbiyeynin dadka kalena khatar bay galinayaan adna khatar bay ku galinayaan naftoodana khatar bay galinayaan intaba khatar bay ku jiraan ilaahay asliye wuxuu ina leeyahay wa nafsin wama sawaaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلهي وحط الماما يا نفطا ألهمها فجورها وتقواها إنه السمي وصفي عن لو أبوري لكن طريقة حنا إنا قاضي كرته هدي لوترين قريو طريقة سنة إنا قاضي كرته هدي لوترين قريو سأوجد بها إلهي وحوري قد أفلح من زكاها وحليباني عدة كلمة الزكاة في اللغة التطهير والنماء لبضا والي هذا زكاة حولها نوي بركيسا وانا يطهرتا نفتا هذا بخلق ايه قرنك ايه حاسد نماذا كا طهيريسا حولها نوي كو بركين يساوي كله إلهي وحولي نفتا قفكي زكية
qofka sakeeyey waxa weeyaan xumihiisiina qofkii iska dhilay korna u baxay ee koray waqad khaaba man dasaha kii xabaalayna idan waa farsamo waxaan u socdoo dhammi waa maxay waa inaan idhaahdo laba shay baynu u baahannay mid waxa weeyaan bini aadamka iyo qiimihiisa inaynu garanno waddanka maanta jaban la yidhaahdaa waxay idhahdaan waa no resource waa wadannada aan resource lahayn macaadin iyo waxba toona ma laha haddana waa waddanka labaad ama saddexaad dhaqaalaha dunida xagguu ka yimi human resource buu leeyahy bay leeyihin dowladda iyo bulshadu waxay maalgelisay qofka jabaniiska ah si uu dhaqaalo u dhalo dabeetana waxay awoodeen waxay idhahdaan maraakiibtoodu birta intay soo raraan ayaa bisha uu markabku dhexda kusii jirabaa factoryguna saaran yahay dabeetana hadhow markuu dekada ku xidho iyadoo stainless steel buu rogaa markii horena iyadoo khaam la soo saaray markabka marka laga rogayana iyadoo stainless steel baa laga rogaa yani qofka bini aadamkaabay maal gashadeen dowladaha horumaraya la sheegayaa GPD-ga waddanka boqolkiiba intaa ayay say u kala xoog badan yihiin u kala maalgeliyaan dadkooda sidii loo tababari lahaa weliba laba shay baa kala jira culumta marna theoretical baa loo qaataa jaamacaadkan iyo meelaha kan theory badan baa lagu soo qaataa waxna waxaa la yidhahdaa waa funuun tarbawiya waa funuun cilmiyo gacantaa laga qabo marka aad shaqada bilaabayso lama yidhahdo ninkani shahaado saru sitaayo shaqada ha bilaabo cidina shaqo kuuma dirto weligaaba shahaado sido shahaadadu waxay sheegaysaa inaad hore wax u baran kartid wixii lagaa rabay inaad barato saa daraaddeed ba shirkaddu training bay ku gelinaysaa engineer baa tahay engineer kalaa lagugu daraya bil laba baad daba soconaysa adigoo waxaan oo dhan theory kale soo qaatay practically soo sameeyey ayaan haddana shirkaddu ku aaminaynin inay practically ku maraysa mooyaane dabeetana assistant baa lagaa dhigi kan baa lagaa dhigi kan baa lagaa dhigi kan baa muddo markaad khibradii loo baahnaa aad hesho khibradu waa maxay waxa weeyaan inaad xasuusan karta meel kasta waxay u baahan tahay instantaneously theoretically ma wada xasuusan kartid laakiin waxaan markaad tajribe ku celiso instant kasta wixii uu u baahan yahay xaafid baad markaa noqonaysaa tarbiyaduna waa saas oo kale cilmi theory qura lagu qaato maaha inta meel la fadhiisto la isu sheego qura maaha waa cilmi la isku tababaro oo qofka training laga saaro ilaa iyo uu gaadho xadkii uu waxa kan samayn lahaa haddaba markaynu cilmiga kobcinta ka warrayno ka cilmi ahaan usus caqiideed buu leeyahay oo caqiido ku salaysan oo ah nolosha maxaad ka aaminsantay dunida maxaad ka aaminsantay qofka bini aadamka maxaad ka aaminsantay masiirka aadanuhu u noqonayo maxaad ka aaminsantay waxaasoo dhami waxay hoggaamiyaan waxa lagu barayaa wuxuu noqonayo cid kasta oo cid kaga gedisan arrimahaasi qaabkay dadkooda u tababaraan ee u kobciyaan way ka gedisantahay dadka kale that's why cid waliba ay u leedahay manaahij tacliimiyo u gaaro dhaqankooda iyo culturekooda iyo afkaartooda iyo caqaa'idooda ku salaysan soomaalida waxay u haystaan cilmigu inuu cilmi la bartoon yahay maaha cilmi waliba caqli iyo ra'yi iyo fikrad baa ka dambaysa wuxuu kaloo leeyahay usus ijtimaaciya oo ku salaysan bulshadu maxay u baahantahay qofkuna muxuu u baahan yahay baahida bini aadamkaa la qiimeeya cid aan rumaysnayn inay aakhira jirto baahida bini aadamka uguma jirto waxa aakhira la yidhaahdo iyo ku xisaabtankeedu cidda se rumaysan maxaa ugu jira aakhira wax la yidhahdo iyo ku xisaabtankeeda ugu jira cid aan ruuxba rumaysnayn bini aadamku inuu ruux leeyahay inuu alla la xidhiidho toona uguma jirto ususka tarbawiga waxyaabaha ruuxda koobiya cidda se rumaysan uu ugu jira marka xaajaadka qofka way ku xidhantay waxay kaloo ku xidhantahay bini aadamka maxaa laga rabaa maalan dowladii romanska la odhan jiray waxay rumaysnaayeen ninka romanka in jir ahaan qofka la dhiso qof xooga oo wax iska celin kara la soo saaro askar dabeetana tarbiyada la mariyo dadkoo dhammi waxay u badnayd tarbiyo muruqa ku salaysan griigii hore waxay rumaysnaayeen falsafad iyo caqligu inuu yahay meesha dadka lagu hogaamiyo marka waxay rumaysnaayeen ususka tarbawiga waddankoo dhammi inuu ku salaysnaado usus caqliya qofka maankiisa sida kor loogu qaado maalan kristankii hore
waxay rumaysnaayeen jidhka iyo waxaan inay dhibba yihiin qofka ruuxdiisa in la koriyo iyaga iyo hindidii hore iyo marka waxaa la odhan jiray qofka jidhkiisaba waa in la ciqaabaa si ruuxda ay u korto oo raahibiinta qaar baa la odhan jiray ninka kani halkuu ka gaadhay ruux korinta 50 sannadood dembiga weji dhaqa la yidhaahda muu gelin weji dhaqa dembiya biyaba inuu ismarin yani waa qof bahaloobay waan 50 sano biyo ismarin dembiga weji dhaqaanu 50 sano gelin si uu ruuxda u barbaariyo innaga soomaalidii hore reer baadiyaha maalan waxay rumaysnaayeen ninnimada iyo raganimadu inay tahay qofku inuu adkaado saasi daraaddeed geeljiranimadu ammaan bay ahayd ninka geeljiraa waxaa loo rabaynayay qof haraadka u adkaysta oo dagaalka u adkaysta oo geeldhaca u adkaysta oo dhib u adkaysta oo waxaasoo dhan saa daraaddeed ilmuhu markuu 18 gaadhaba geela lagu daraa kaa yar bay geeljiruhu wax walba ku raraan isaga hadhuubka sida oo gudinta sida oo maqaarka sida oo xoolaha raacaya waxa laaliya waxay xoola haystaan ama qalab sitaan ka ugu yar baa sida waxaasoo dhan isagoo xambaarsan oo maantoo dhan daalana xoolahana raacaya mid yaroo leega ka soo horbaxaya intaba dhigay odhanayaan oo la ultan ul inta loo dhiibo hadduu ooyo waa la dilayaa hadduu intuu ultamo uu ooyo ama laga badiyo kii weynaaye wadaa dilayo odhanaya nacasku dhaleen ragga iska celinaya waayo culture-kan baa wuxuu ku salaysnaa qof adag in la soo saaro oo abaarta iyo dagaalka iyo wax walba u adkaysanaya oo aan ibnu hunduul ahayn ceelabaysteynnimaan ahayn inuu soo baxo ragi idan waxaan uga jeedaa bulshadu baahideeday ku salaysaa maxay qofka sida loo rabaynayo muxuu noqonayaa berrito waxaa jira usus nafsi oo qofka lagu rabeeyo oo ah muxuu qofku qaadi karaa dadkoo dham isku wada mid ma aha qof baa cilmiga ku fiicnaan kara qof baa farsamada ku fiican qof baa farshaxanimo ku fiican qof baa adab ku fiican ma aha un dadkoo dhami dhakhtar wada noqda inaad tidhaahdo qof baa dhiigaba markuu arko ma taga dadka badhba hadduu dhiig arko ma tagaya haddaad tidhaa kaa dhakhtar noqo wax qalsay u suurtoobaysaa yacni waa inaad garataa ilmahaad dhashay fawaariqda fardiga u dhaxaysa muxuu baran karaa maxaase aanu baran karin waa inaad garan kartaa alxaajaat nafsiya aadanuhu muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay kow intimaa inuu cid ka tiirsanaado qofku kelima noqon karo wuxuu u baahan yahay ihbaatu daat qofku daatadiisa inuu sugo qof nooloo la garanayo gaar u taagan inuu noqdo wuxuu u baahan yahay qofku inuu xorriyad helo wuxuu u baahan yahay qofku waxuu ku farxo oo naftiisa farax geliya inuu helo wuxuu u baahan yahay qofku inuu muntabit noqdo qaanuunka inuu raaco xorriya mutlaqa ma jirto systemka inuu hoggaansanaado haddaba waxaas oo dhan aan ka warramay aadanaha sidee loo baraa hal daris kagama hadli karno waxaan leeyahay waxaasoo dhami waa mas-uuliyadda koowaad ee waalidka labada qof ee wax dhalay mas-uuliyaddooda koowaad weeyaan bulshada 3 qaybood baa wax rabeeya waa waalidka iyo mujtamaca iyo dowladda dowladdu dowladuhu waxay jecel yihiin waxay dadka u taliyaan inay homogeneous group noqdaan waxay kaloo jecel yihiin casrigan dambe multicultural inuu noqdo laakiin dadka in kasta oo laysu ekaysiyo ay dhaqan iyo af iyo diin iyo wax wadaagaan ninka siyaasiga maamulka u hawl yaraanaya marka bulshada si la isugu daro dowladdu 3 shay bay adeegsataa dowladdu waxay adeegsataa nidaamka wasaaradda waxbarashada 10 sannadood ee hore cilmi maaha laakiin waxa weeyaan waa isdhexgalka dadka 10 sannadood ee qofka lagu baro saa daraaddeed ba dowladaha inta ugu badani waxay qaateen compulsory education 10 sannadood oo hore ama 9 sannadood oo hore waa qasab qof waliba waa inuu iskuul dhigtaa maxaa la rabaa dadkoo dhammi inay culamo noqdaan maya waxa la rabaa dadkoo dhammi inay isfahmi karaan dhaqan iyo af in loo sameeyo dadku uu ka midaysan yahay value ay ixtiraamaan qaabka loo wada noolaado dadka waa la isbarayaa kaasi waa kow shayga labaad ee ummadda lagu hagaa waa iclaamka tv raadiyo jariidad waxaan oo dhammina bulshada wuu hagaa dadka koox gaarunbaa wuxu sheegtaa ilaa xad imika la marinayo cunnada waxaad cuni lahayd xataa meeshaa la isaga sheegaa
soo kicha kama soo baxdo gelinka hore wax la kariyo haddaad kaa ku darto ugu dhanaanaya haddaad kaa ku darto macaan xataa dhadhankaa la rabaa in lagu sameeyo dadku isku dhadhan noqdo oo dhan loo wada socdo qaybta saddexaadna waa qaanuunka intaa wixii soo dhaafa sharciga lagu hogaaminaya waxa haddaad samayn weydo xadhig ganaax waa iyana in laisku kiindhilo intii intaa soo dhaafta waddadaa la wada mariyo kaa dowladda ka mas-uula midna bulshada leh waa ururada kilaabada hibdheelada meelaha laga tunta waxa kan muslimiinta halkaa waxa ugu jirta maxay naadiyadooda iyo meelaha isugu yimaadaan iyo masaajidda midina waa guriga haddaba 6 sannadood ee ugu horeeya crucialka ah waalidka mas-uuliyadda ugu weyn ay saarantay lixda ku xiga iskuulka iyo masaajidka mas-uuliyadda ugu weyn saarantay teenager markuu soo gaadho soo dhaafo intaa bulsho weynta iyo miidiyaha iyo waxa uu maqlayaa waxa ugu badani uu ka qaataa 6 ugu horeeya sannadood ee crucialka ah waa 6 aanu ilmuhu ka maarmin hooyo gaara inuu helo hooyada in lala wadaaga ma fiicna bay dhahdaan walidaalka waxay dhahdaan ilmaha meelaha la hayo lagu koriyo iyo ilmaha hooyada gaarka ilaaday isku si uma koraan waa tajaarib badan ay sameeyeen ilmuhu maxaynu baraa 6 sano ugu horeeya waxaan leenahay ilmaha wax lagu baraa طريقooyin badan المحاكاة والتقليد الضبط والتعويد الاستمرارية كدب intaas oo dhan oo la isku daray alqudwa alxasana kadib ayaa qadaayad kala bilaabmaan maxaan kuwan uga jeedaa tusaale markaan ku siiyo waxbaad fahmi doontaa maalan ilmuhu wuxuu u baahan yahay inaynu barro inuu kaadida iyo saxarada meel gaara la tago marka hore aynu dhallo ma yaqaano kaadiya saxaradu inay waqti leeyihiin iyo in meel gaara lala tago toona ma yaqaan soo samaha xafaayad baynu isaga xidhnaa bambaro aynu rabno inuu ilaaliyaan waqti male waa dhowi bambarkaasi markay hooyadu ka furayso maxay samaysaa dumarkaa inta badan yaqaana raggu ma yaqaano sacaga maaha adu wuxun baa tidhaa waa ka nagaga kaajiye guriga naga qabo marka hore xafaayad baa loo xidhaa waqti ma leh markuu doonana wuu kaajaa markuu doonana wuu saxaroodaa hadhow baashani lacag bay joogtaa waxaad rabtaa inaad ka furto islaantu markay ka furto waxaa laga yaabaa usbuuca hore ama 3-4 cashay ugu horeeya saacad bay u fadhiisay saacad markuu joogaba mee baydhbaankii baa la yidhaha tunjiga soo si fadhiiso markaasaa la qasbaa markaasuu kaaji waayaa markaasuu markaajaa saacad kasta waa la ilaalinaya iyuu guriga gelina eega wata xafaayad ma sito waa la raacada xaafadda dadka joogo dhami sida xoolahay kaa yar u ilaaliyaan cabaar marka la wado maalmuu la dhuuntaa marmar buu kursiga kaga kaajaa marmar buu halkan waa loo dulqaataa waa la wadaa maalmaha dambe wuu soo bataa 3 saacadoodba mar baa la wadaa maalmaha dambe wuxuu bartaa in waqti la kaaja ay jirto laakiin waa carruura weli lama qabsan wuu ilaabaa markay ka daadanayso ku odhanaya kaada heesa kaada orad musqusha galo maalmaha ku xigtana meeshuu ku sii kaajaa maradu iskaga sii kaajaa waayo weli maskaxdiisu lama ay qabsanin last minute-ka inuu kuu sheego akhiiran sidaa ugu wadno waxaynu gaadhsiinaa 10 casho dhowr iyo 10 casho ugu badnaan bil markaynu wadno wuxuu bartaa in waqti la kaajaa jirto meel lagu kaajo gaar ay jirto guriga intiisa kalena aan lagu kaajin inta ama wacdaynu ugu sheegnaa mise farsamaynu ku baraa ka warran inta ka yarna dhaan wariya dhagayso guriga laguma kaajo halkan guri baa la yiraahdaa xagaana musqul baa la yiraahdaa miyay saasi soconaysaa waa qosasheen noloshoo dhami markaa tarbiya haddaad maqasho waa tacwiid waa qof la train gareeyey qofkan waxaa loo train garaynayaa inuu maxay sidaa noqdo ka soo qabo ilmaha waxaynu barraa markaa xaajadiisa inuu guto waynu ku train garaynaa waxaynu ku train garaynaa cunnada hooyadu waxa fiican
markuu yidhaahdaba naaska lama siiyo. naasku waa inuu waqti yeeshaa. markuu yaryay maalan aad u yaryay waxaa laga yaabaa saacad 2 saacadoodba mar in naaska la oojiyo wax badanna nuugi maayo, waqtiyo badanna waa la siiyaa. markuu soo yaro koro naaska caanihiisu way isla bedelayaan. ilaahay baa ugu talagalay. wax laaliya waxaad daasad siisaan waa poison. ma jirto daasad dhakhtareed oo ilmo la siiyaa. all of them waa poison. hadda idin melihi waa wax lagu meel waa sun carruurta la siinayo. laakiin shirkadka waaweyn ee dhaqaale waxay leeyihiin rag u fudaydiya waxa kan. maaha war Mustafa sheegayo, khubaradooda caynkaa leh. wax uga fiican naaska hooye ma jiro ilmeed. ilaahay naaskaasi uu siiyey ilmaha da'du joogo wuxuu u baahan yahay ilaahay ka soo daaya. maalinta lagu bilaabayo waxaynu dhahnaa waa dambarku waa maxay? waa chemical loogu talagalay meelaan weligeed cunna marin buu marayaa inuu hagaajiyo, safeeyo. marka hore naasku waa biyo ilaahay baa ugu talagalay. ilaa iyo marka dambe laga gurinayana waa caano adag, waa dhaqayo. gela raggii maali jiray dhaqayo geeliya miya isku mid ah marka bilowga yahay dambarka laga maalayo isku nooc maaha. intaa u dhaxaysa caanu way isbedelaan. mar kasta kimikalada nooc baa ku badan, vitaminada nooc baa ku badan, brotiiniska jaad baa ku badan, ku xidhan da'da ilmahan iyo siduu u korayo. okay, ilmaha naaska marka loo bilaabo yar baa loo siiyaa. markuu korona waa inaad dabdiga bartaa. markuu yidhaahdaba in la siiyo maaha. hadhow ilaa laga gaadhayo marka laga daynayo saacaduhu way koraan. waxaynu cunnadaynu barraa. soomaalidu inta badan mooyi ma cunnaday laxajeclo ka qabaano ayuu daadinin iyo waxaasaa laga yaabaa. gaalada maaragteen kursi yar inta lagu xidhxidho ayaa midaan waxbaba cuni karayn loo dhiibaa. beleed yar iyo malqacad loo dhiibaa. markaasuu halka ku daade halka waxay rabaan inay hore u train gareeyaan. dabeetna trainingkaa markuu ka baxo waxaa laga yaabaa 2 jir maalintuu gaadho ama 3 jir maalintuu gaadho cunnadiisa isagaa cuna. innagana 4 jir islaane afka kaga guraysaa baad arkaysaa, ama 5 jir soo fadhiiso haya halkan. waa si qaldan. ilmuhu intuu yaryaynu u train garaynaynaa inuu barto al-i'timaad cala nafs. qofku inuu isagu isku filaan karaad rabtaa inaad barto. siduu isugu filaanayana maalinba shay baad trainingkiisa bilaabaysaa. haddaad kaadi ka daynta maalin bilowday waxaad bilaabaysaa cunnadana inuu isagu barto sida loo cuno. maalmaha hore malqacaddu kolba dhan bay afka ka maraysaa, halkuu isku daadinayaa. iminka miya gacantaadii afkaaga aad isla daydayda may waa la train gareeyey. trainingkii markuu ka batay ayaa haddaad indhaa isku haysiyo haddaad af kala haysatona mirna miyaad la waayaysaa afka. laakiin ilmuhu markuu yari wuu la waayaa. trainingkaa markuu muddo wado al-i'timaad cala nafsi buu bartaa. innagu waa sabir daranna. ilma markaynu iskuulka geynayno adigoo degdegsan dabeetana labada kabood adaa ku jufo yidhaha barstaag xadhigga u xidha islaanta u xidhxidha. haddaad kuwa gaalada ilmahooda aragto isagoo 3 jira waxa la baraa siduu dharkiisa u xidhan lahaa. soo qaada ka ahaa badhinkaa xidh isagaa loo sheegaya wuu xidhanaya. maalmaha hore nuso saac bay qaadanaysaa inuu dharka xidhaa. meeshan yare ay geeyaanna habarta joogtaa ka furi mayso. waxaa odhanaysa halka istaag fur kaba horta iska bixi. wuu bixinaya halkaa saar, isagaa saaraya. sharaba halkan saar, kan bixi halkan saar. waxaa la barayaa qofka kani inuu ismaamuli karo. waa la caawin kari lahaa markiiba daqiiqad baa lagu samayn karaa. laakiin waxaa loo train garaynayaa maxay? inuu barto. afkaa yimi bini aadamku siduu afka ku bartaa. suu ku bartaa? marka hore wuu dhegaystaa. suu u dhegaysanayo codkuu bartaa. dabeetana wuxuu ugu hor bartaa codka hooyadii iyo ka aabihii. hadday hadlaan wuu eegayaa isagoo waxay ku hadlayaan aan fahmaynin. guriga haddii 5 qof joogto oo ilmuhu halkan saaran hooyadii hadasho iyaduu eegayaa. codkeeduu ka bartay codadka kale. kadib asmaaduu bartaa inta badan iyo erey yaroo isticmaalo. jumlo ma barto. caano ayuu leeyahay markuu caano doonayo. caano isii ma wada odhan karo. biyo waxaa laga yaabaa waxa la cabo o dhan inuu biyo u barto in la yidhaahdo, ama waxa la cabo o dhan inuu caano u barto. ereygii kusoo horreeyo maalinba erey buu bartaa. maalinba erey buu bartaa. kadib wuxuu bilaabaa hadal. laakiin hadalka makhaarij alxuruuf ma yaqaano.
meesha erayga laga soo saaro xarafkan meesha laga soo saaro ma yaqaano wuxuu ku hadlaa erayada oo jajaban reerkoodun baa fahma markaa caynkaasuu leeyahay hooyadii baa kaaga tarjumaysa hebel buu yeedhaya waxaan buu sheegaya waxa ay siiyuu leeya siiya dadka kale ma fahmin waxa uu sheegayo waayo makhaarijtii baa lunsan wali laakiin siduu u tijaabinayo makhaarijta bartaa dabeetana eray buu u bartaa kadib buu bartaa laba eray in la isku xidho kadib buu bartaa jumlad in la samayn karo kadib buu bartaa hadalka in la xasuusan karo kadib buu bartaa inuu ku fekeri karo kadib buu bartaa inuu maxay waxay yidhahdaan 2 jir meelaha markuu marayo ilaa 2500 oo eray buu baran karaa 3 jir 4 jir tiraa loo hayaa qofkaasi markuu da'da marayaba inuu intaa soo eray haddaanu intaa garanaynin waxa la yidhaahdaa waalidku may train garaynin qofkan waxa la rabaa markuu hadalka baranayo inaynan ku qoslin ama ka tumanin inaynu isku dayno inaynu u saxno eray cusub inaynu barro jumlad inaynu barro afafku luqadu waa waxyaabaha ugu weyn ee qofka bini'aadamka nicmo ee ilaahay siiyey aadanahana waa wixii ilaahay ku karaameeyey nabi aadam maxaa lagu karaameeyey wacallama aadama asmaa kullaha intuu malaa'igta kaga mudnaaday maxay ahayd tan bay ahayd luqadu waxay yidhaahdaan waa nicmooyinka ugu waaweyn ee bini'aadam ilaahay siiyey waxaad qiyaastaa qof bini'aadama oo aflo oo dhagaala qiyaas wuxuu dareemayaan kuu sheegi karin waxaad adigu dareemaysaa aanad u sheegi karin waxbaba luqadu waa akbar nicma saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu inoogu mana sheegtay alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu lbayaan baa ilahay yidhi callamahu lbayaan caddayntaa ilaahay baray altacbiir cama fi nafs luqadu waxay ka mid tahay aayaadka ilaahay lagu garto ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بإلهي لغضه وتواصلك وواحد بني آدم كو حريره واحد دوني سوى واحد كل شيء كرته واحد كفكر سوى واحد كل شيء كرته وواحد لا يسكو فهمه لغضه waa waxa sida dhaqanka iyo caqiidada iyo afkaarta ummadi leedahay luqadu waa qiimo fanniya waa mutca fanniya bay leedahay adabkeedu afka hooye bay yidhaahdaan waa afka guriga laga barto markaasi aan macallinku barin waa afka bay yidhaahdeen dhaxalka ummadi leeday sida waa afka sida baa la yidhaha hiddaha dadku leeyahay waa baadi soocda ama waa sumadda dad leeyahay sida awgeed ummadda afkeeda weydaa dhaqankeedii iyo dadnimadeedii way weyday soomaaligu waa maxay soomaaliga ma waxaa moodaysaa inuu qabiil yahay maaha soomaaliga identitygiisa huwiyadiisa ugu weyna lagu yaqaana waa afka soomaaliyeed maalintuu afka soomaaliyeed ilmuhu waayo ma aha soomaali wuu ka baxay ilmuhu hadduu af soomaali waayo maxaa diintiisa lagu barayaa qofna af kale kuma dhergo dunida waxay yidhahdaan maanta aynu ku noollay dad bini aadamku soo afafka u qiimeeyo waxay yidhahdaan 500 ee jaamacadood ee dunida ugu qiimaha badan leh oo 35 waddan oo dunida ka mida ku yaala jaamacad kastaa afkeeday ku dhigtaa 19 waddan ee dunida technology-ga hogaamiya waddan waliba afkiisu ku dhigaa saa awgeed waxaa la yidhahdaa af cilmi ma jiree dad kale baa afkooda cilmi ka dhiga inagu se waxaynu moodnay ingiriisiguna inuu cilmi yahay af soomaaliguna uu jahliyey jahligu waa inaga maaha af soomaaliga jahligu waa inaga moodnay markaynu afkeenna luminay inay wax fiican tahay wax fiican maaha waa dhaqan xumo halkii ugu dambaysay waa caqli liidasho halka ugu dambaysa inaynu afka luminaa soomaali ilmahaagu noqon maayo haddaanu afka aqoonin diin fiicanna baran maayo haddaanu afqoonin naadir mooyaane waayo af kale qofku kuma dhergo
مهما أنا في إنجليزي عربي قرني وحن دوني يكون شيء كرا صومالي بان وحن دوني يكون شيء كرا المها الصوماليات بان وحمد حيجا كجو حيا وطلابين كرا لكن أففك أنا أخريه ومجد بين كرا المها كوكبعة وحن دريم يوردن إذا هداد المها أفك كله مسان إن بدنو كم مدة دقيقة وكتورتين إن بدنو كم مدة دينتين وكتورتين لكن نقول حنو هيسنا أفصومالي وسكبرن دون هذا الله يرهده مركزات واحد ديدي ساينو يسوق في الصومالي تشجبان كلها الله مركزات هذا في إنجليزي تشجبان كلها الله يسا شايفين ما هذا في إنجليزي تشجبان كلها الله يسجن واحد ديدي سا في الصومالي تشجبان كلها الله تكون غسل يسا مايا المهنين ندير رجليه ويان في الصومالي تشجبان سود ويان إن وحب بيريه ويا إن أنا أروح في إنجليزي تشجبان كلها الله ويان المهيدا هدات الربط مركا waxaynu nimin meel dagaal uu ka jiro ninka hindiga ah markuu wadankiisa joogo dagaalkan ku jiray India boqolaal af baa laga hadlaa boqolaal diimood baa lagu haystaa boqolaal dhaqan oo kala nooc ah la haystaa saadaradeed markuu wadankiisa joogay buu qof feejig oo fayow ahaa oo ilaalinaya diinkiisa iyo afkiisa siiga ka yimi India halkan markuu joogo waa siig afkiisina uu ku hadlaya dabcaabud ka jooga India ka yimi halkan markuu joogo waa dabcaabud afkiisina siisi buu ugu hadlaya muslimka joogana afkiisina siisi buu ugu hadlaya isagoo 5 qarni jooga inana kuwaynu keenay baa imka afka laba garanaynin iyagoo nool aynu la ordayno kuwaynu keenay ayaa waxoogaa Ingiriisi iyo jaban garanaya umas Ingiriisiga ku hadlayaan oo dhammaan waa tan suuqa suuqu wax kaga iibsan karaa kuna warwareegi karaa laakiin af cilmiyeed maaha ama af culture xambaarsan maaha haddii culturally loola hadlo ma fahmayo marka kiisiina wuu lumiyey ku kalena ma haysto in aad u badan Soomaalida af Soomaaliga la liita umamkuna maadaama caynka u arkayaan af dhintay bay ummadaha qaarkood soo noolay yuhuudda ma taqaanaa dawlad maanta yuhuud la yiraahdo soo ma maqashaan Israa'iil la yiraahdo halkan jirta af dhintay bay soo nooleeyeen si ay dadkooda wax ugu baraan oo u noqdo luqada rasmiga ee wadanka af cibriya dunida ku hadli jiray kaasa inta dib loo nooleeyay maanta takhasusaadka daqiiqa ee dunida qaar kamida lagu qoraa kamida jaamacadka dunida ugu horeeya maanta ku yaala Israa'iil qaar kamida teknolojiyada badbay dunida hogaamiyaan iyagoo ku barta maxay af cibri af kumanaan sano ka hor lagu hadli jiray tay dib u nooleeyeen bay waxa ka dhigan af nool inana mid noolo hadda dadkii ilaahay joogaan bay rabnaa inuu dhinto ana arrinta af Ingiriisiga qaan insha Allah diinta qolada af Ingiriisiga soo dhageysanaya qolada af Carabiga ka soo dhageysanaya saasaad u haysataa kuwana wax kama fahmo markay qoslaan buu la qoslaa laakiin wax kale kama garto waxa rasmiga markaa wuxuu yahay war luqad waa dadnimadiini waxaan adigu qofkaagan weyne Soomaaliya wali xiisaha ugu haysta inaad ku noqoto ugu jeceshay dadka aad afgaranaysa culture-ka aad garanaysa dhaqanka aad fahmaysa isagu laakiin midna ma rabo waayo culture-koodana ma yaqaan dhaqankoodana ma yaqaan si uu fakarayana waayo afkaasida hadduu qofku afka waayo afkaad si rasmi ah u garatay dhaqankiisa aad baratay idan inagu markaynu nimid dhulka kan multiculturalism ku yaalo dawladaha jooga waxay isku dayeen inay dadka isku milaan waxaana isku dayayaan inay shaqo abuur sameeyaan waxay isku dayayaan caafimaadka inay ilaaliyaan laakiin inaga masaajidkeena iyo gurigeena xilka ah haya afka iyo diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo suluuga ilmaheena inuu ilaaliyo ilmaha Soomaaliya lagu korinayaa waa ilmo gaalnimo looga baqay inta badan waxoogaa akhlaaq xumo baa taala u baahan in laga dagaalamo ama ilmaha halkan jooga wax kasta uu luminaya ilaahay markuu ina leeyahay ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha an-nas wal hijara wa mas'uliyat kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati maxaynu u baahanay marka waxaynu u baahanay ilmahani inuu istaagi karo oo malakatu tamyiz inuu yeelan karo khayrka iyo sharka intuu kala garto inuu dooran karo
goormuu gaadhayaa taa inuu khayr iyo shar intuu kala barto haddana uu dooran karo waa goortaad mawaasiinta wax lagu qiimeeyo aad u gudbiso ay ugu horrayso afkiisa iyo dhaqankiisa ay ku xigto ama la mar tahay caqiidadiisa insaanku waa asiiru muctaqidaati wuxuu rumaysan yihi ilaahay qur-aanka wuxuu inoo soo gudbiyey nin xakiim ahaa oo ilmihiisa la dardaarmaya muxuu dardaarankii luqmaan ee ugu horreeyey muxuu ahaa yaa bunay laa tushrik biاllah ina ashirka la dulmun cadiim ilmahaygiiyow ilaahay u shirig yeelin shirkigu waa dulmi weyn waa inaynu ilmahan barnaa malakatu tamyiiz inuu yeesho ilmihii waddanka joogay xumahana xumuu yaqaanay samaana samo u yaqaanay waana waxa ugu fiicana uu helo waayo dadkao dhan baa sidaa uu yaqaanay laakiin ilmaha halkan jooga wuxuu la nooliyey waxaad adigu xumaha u taqaano dad samaha u yaqaana inanta yar ama inanka yar ee 12 jir 13 jir adigu waxaad leedahay zinada iska ilaaliya boyfriendka iska ilaali kan iska ilaali markuu iskuulka tagana socially marka ardayga la qiimeynaya waxaa la leeyahay asxaab ma leeyahay inan hadday tahay boyfriend ma leedahay inan hadduu yahay girlfriend ma leeyahay haddii aanu lahayn macallinka cilmi nafsiga baa loo dirayaa si loo baadho ilmahan cuqdada ku jirta waxay tahay waa ilma buka agtiisa waayo inuu xorriyadda qaato marka ilmaha kani wuxuu gelayaaba xad la baadho adigu waxaad ku tidhi inan iyo inan aan isqabinin waa zinadu waa mamnuuc inay isu dhunkadaan waa mamnuuc hortiisa isku haystaan kuwa kalaaska la dhiganaya baa is haystaa tvgii baa is haystaa wax walba baa is haystaa wax wanaag baa loo tusay adna waa xumaad ku tidhi idan waa inuu ku qancayn waxaanay xumayeen malakadani waa inay u dhisantay waa inaad mas-uuliyad bari kartaa walidalik ilaahay wuxuu qur-aanka inoo tilmaamayaa ilmuhu markuu 15 jir ama qaan gaadho inuu amaam allahi mas-uul yahay socankaa maaha aakhire in la xisaabayo macnaheedu waxa weeyaan inta ka horraysaa loo traingareeyay inuu mas-uuliyadda qaadi karo saxaabadii iyo dadkii muslimiintii hore gaalay la noolaayeen amoodin mujtamacan muslimka ee soomaalida oo kale inay ahaayeen gaalay la noolaayeen laakiin gaal dhexdeedaa lagu traingareeyo la baray idan intaan caqliga la furan waxaa ka horreeya inaad qalbiga ilmaha furatid fatxi alquluub qabla fatxi alcuquul oo ah almaxaba walxanaan inuu ilmuhu kaa helo si uu warkaaga u dhagaysan karo kalgacal inaad ku beerto thani alamr inaad wax kasta tacwiidiso tababarka inuu qaato salaada maxaa layna yidhi 7 jir ayaa layna yidhi salaada bara innaga dadka badh baa 2 jir iyo 3 jir iyo keena 2 jir iyo 3 jir in masaajid la keena maaha 7 jirku waa xaddu tamyiiz macnaheedu waxa weeyaan qof bartay garan kara tahaaradu maxay tahay najaasta see la isaga maydhaa salaada see loo tukadaa ama waxay idhaahdaan waa qof daakiradiisu fiicantay intuu 6 jirka kasii yariyay bay idhahdaan ilmuha daakiradiisu ma fiicna waad baraysaa bidixda iyo midigtaa la hormaydhaa bidixdaa la dambaysiiyaa wuu isku qasaya maalina bidixdu maydhaya maalina midigtu hormaydhaya laakiin markuu xaddu tamyiizka gaadho bay leeyihin waa marka aan waxba ka qaldamin daakiradiisuna fiicantay in wixii loo sheego uu xasuusan karo laakiin waxaa layna yidhi 10 jir markuu gaadho baa maxay cuqubadu bilaabantaa soo maaha 3 sannadood maxaa jira 3 sannadood oo min 350 ama 60 maalmooda oo 5 lagu dhuftay waa mise waa dhowr kun salaadood 5 kun salaadood waa trainingkii 5 kun salaadood waa tacwiidkii maalmaha hore labuu tukanayaa wuu iska seexanayaa 3 buu tukanayaa maalintuu daalo wuu ka seexanayaa salaadu markay dheeraato ee maqribku goor daba noqoto waa iska seexanaya laakiin waa la soo tababarayay macnaheedu waxa weeyaan 10 jir markuu soo gaadho waxaa la rabaa qof trainingkii ka baxay inuu noqdo dabeetana nooc min ciqaab baa bilaabmaysa laakiin haddana weli loo qabsan maayo aakhiro goormaa ilaahay xisaabinaya markuu dhowr iyo 10 jir gaadhay markuu qaan gaadhay intaa ka horraysa oo dhamme maxay ahayd training bay ahayd haddaad inta ka horraysa ihmaalisa ka warra aad iska dayso oo markuu dhowr iyo 10 mar ayaa tidhaa waryaa salaada tuko muxuu tukadaa maadaa tababarayba
markaasuu bilaabaya dee inuu maalina tukado maalina jaro salaada tukado salaada ila muu soo gelin trainingkii tirada badnaa noloshu waa sida tan markaa waa inaad qofkan markuu 15 jir gaadho ama uu qaan gaadho waa inaad u tarangarisay inaan hadday tahay inay guursan karto guri yeelan karto hooyadu waa inay saa u fakartay waa in loo tarangareeyay inaan hadduu yahay inuu maamuli karo guri oo yeelan karo waa in loo tarangareeyay inuu naftiisa ku filaan karo qof la daba socdo aan la raadcaynayaan ahayn qof amaama alqaanuuni wa amaama allahi mas-uula qaanuunkana isagaa lagu qaadaya hadduu waxada iyo hadduu wax dilaya haddii wax walba amaama allahi aakhira hadduu tagana maxay isagaa mas-uula soo waxaynu rabnaa feedingkan inagu warwarkan cunadayna haysta waxa ka muhiimsan warwarka barbaarinta haddii markaa aanu aabbaha iyo hooyadu tababarayn sidee bay ilmo u tababari karayaan su-aashu waa taa waxaan idinku bilaabay qoladii iskuulka laga soo saaray shahaadada la siiyey iyo wadaadkii yidhi waa inay dadku qaataan license weliba mar baa jirta aynu ku noolayn dhul dad tajriba leh cilmiga marna tajriba lagu helaa marna class baa laga soo qaataa dad tajriba leh baad la noolayd markaad waddankaaga joogtay ayeeyooyinka eedooyinka habaryaraha aabaha awowyada waxaan oo dhamay aday carruurta kula korinayeen waana kaa tajribo badnaayeen soomaalidu maxay idhahdaan curraafayska islaamaha lagama maarmo curraafays kale maaha waxa weeyaan way kaa farsamaya qaadsantay ilmuhu markuu ooyaabay garanaysaa waxa hayaa wuxuu yahay can ariiqi tajriba bay ku baratay 60 sannadood bay sidan u soo noolayd 60kii hooyadeed tajribadeediina way soo qaadatay ama kii ayaydeed haddaanay ku darin 100 sano tajriba ah bay wadataa 100kaa sano tajribada markaa waxay bartay sida qofkan yaree soo socda loola dhaqmo iyo kaljarkiisii laakiin kuwaana waynu ka soo durgnay xataa tajribada ahaa haystay marka inan iyo inan bilowa ama midkoodna shaqo taga midna guriga sii jooga meel cidla ah reer la degan ilmuhuna wuxuu ku nooliyay meel multicultural ah diimo kala gedisan afaf kala gedisan dhaqamo kala gedisan sidee baa farsamo yaqaan aad u noqon kartaa markaa ka soo baxa inuu ilmaha ka saari karo iskuulkii uu u baahnaa siiba 6 sano hore 6 ku xigana adiga iyo iskuulku iyo masaajidku sidee baa isu adeegsan kartaa haddii iskuulku idinka caqiido gedisay waxa fiicnaan lahayd inay iskuulladiina yeelataan haddiiba idinka caqiido gedisnaan noqday guriga iyo masaajidku seebay ilmaha inta iska kaashadaan u soo saari karaan inuu la loolami karo haddii ilmaha afku uu ka lumo masaajidkuna wax ma bari karayo wixii la rabay looma gudbin karayo hadduu diinku ka lumo wixii la rabay looma gudbin karayo ilmuhu markuu qaangaadhka soo noqdo waxay dhahaan 3 wax buu dareemaa 3daa waxna wax loo soo tababaray waa in ahaada waa inuu mas-uuliyadda dareemaa inuu xambaari karo waayo nolol cusub buu gelaya jidhkiisii wuu isbedelay codkiisii waa isbedelay siduu u fakarayay waa isbedeshay tajribo buuran ma haysto waa la kaalmeeyaa laakiin waa in mas-uuliyadda la baraa kow xorriyad buu bilaabaa waa inuu xorriyad helaa laakiin waa inay noqoto xorriya mundabita bilqaanuun wixii la rumaysnaa ee qiyam ahaa iyo dhaqanka iyo qaanuunka iyo sharcigii mid ku dabitsan inay noqoto wuxuu jecel yahay wax walba amar inaanu ku qaadana in la qanciyo wiil dhalinyara baa nebi maxamed u yimi isagoo majliska fadhiya wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo anigu waxaan rabaa buu yidhi in la fasaxo xagee loo fasaxayaa ilaahay anigu hablaha inaan iska raacaa baan doonaya aniga zinada halay ogolaada buu leeyahay fasax buu rabaa ka warran hadduu iminka inaan intuu halkan yimaado u yidhaahdo war anigu waxaan rabaa in la fasaxo zinada la fasaxo ama waynu qayliye lahayn ama way yaabi lahayn soo maha nebigu markuu caynkaa yidhi dadkii yaabeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi udnu soo dhawow buu yidhi ilaa inankii sidii loo ixtiraamayay nebiga hortiisaa la fadhiisiiyey dabeetana nebi maxamed buu hor fadhiistay wuxuu yidhi maxaa tidhi wuxuu yidhi waxaan rabaa in lay fasaxo anigu zinadaan fasaxu rabaa buu leeya ilaahay rasuulkiisiiyo
wuxuu nebigu ku yidhi hooyadaa ma la jeceshay zinadu waa xaaraane ha samaynan lama odhan waxaa lagu yidhi hooyadaa ma la jeceshay markaasuu yidhi ma ilaahay rasuulkiisiyo hooyada in cidina ka sinaysato ma rabo dabeetana wuxuu ku yidhi dadka kalena dumar kalena qaar bay hooye u yihiinoo aaniyana la jeclayn walaashaa ma la jeceshay may eedo habari intii ku hareeraysnayd dumar ayuu nebigu midba mar weydiiyey calayhi salaatu wasalaam mid walba wuxuu yidhi lama rabo wuxuu ku yidhi dumarka kalena intaasi rag bay eedda iyo habar yar iyo kanu yihiin oo iyaguna lama jecla si loojikuu nebigu ula hadlay uu qancinayo kadib uu nebigu u duceeyey waxay culamada taariikhda wariyaa yidhaahdaan inankii gabadh dambe ma eegin yani waxaan uga jeedaa fatxulquluub baa ka horreeya inaad qofka qalbigiisa hanataa ka horreeya inaad caqligiisa qanciso laakiin marka dambena wuxuu u baahan yahay markuu da'dan soo gaadho inaad caqliyan qancin karayso innagu waxaynu nin dhowr iyo 10 jir intaad soo kaxayso dukaanka xisaabaad leedahay maradan qaado marka isku leeyahay tan baan qaadanaysa war waxaas mara maaha tuur taa qaado ama intaad adigu gurigii dukaanka tagto waa shaar iyo surwaal soo iibiso ayaad waxa leeyahay kuwaasaan kuu soo iibiya qaado marka isku leeyahay mukoon dooni mayna inaga dah war bal waxa xunday maanta oo dhan baan kuu soo iibinaynaa baad leeyahay sax maaha waxa sax ah inaad kaxayso oo dukaanka geyso laakiin tajribo ku filan ma haysto aad wax u sharaxdid marka inaad tiraa maryaha noocaasi way fasaqayaan kuwa haddaad maalinta horeysa ay maydhmayaan kuwa kani qiimahooda iyo isuma cuntamaan qualitygooda wuxuu yahay kan inaad qofka qancin karto dooritaan gelin kartid halka aad rabto inaad ku tawjiihin kartid marka tiraahdaa baa aniga waxa ila quman ka ama ka inaad qaato way kaasina waxa isku fiican yahay kaasina waxa isku fiican yahay haddaad qanciso marka kalsoonida hore idinka dhaxaysayna ay wanaagsanayd oo kalsoonida hore hadday xun tahay yani hadduu ku arko inaad waxbaba garanaynin oday reer miyiga inaad tahay dee waxoogaa dhegaysan maayo saacika maaha hadduu ku arko inaad dadka ka dambayso oo aanad tirangelin waxba kaa dhegaysan maayo laakiin hadduu ku arko valueska iyo qiyamka sidata wax ku ool inay yihiin wuu ku ixtiraamaya midna way iskaba jirtaa sideedaba oo marka uu yar yahayna dunida ilmaha waxa uu la weyn aabihii hooyadii dabeetana inantuna inay hooyadeed u ekaato maryaheeda gasho kabaheeda gasho maradaad meel dhigtabana ka yaraad dhashay isagoo isku jufay baad arkaysaa abaaba iska dhigaya laakiin markuu soo weynaadee dhowr iyo 10 jir soo noqdo odaygii la dheeraa dherarkiisa wuu soo gaabtaa salaantana way soo gaabataa isna wuu soo karayo dee wuu isku dherariyaa dad kale oona wuu la dhaqmay bulsho kale oo ama ka yara aqoon badan ama ka lacag badan ama ka tan badanna wuu la soo dhaqmay marka horta dherarkaagu intii hore uu ka soo gaabtay waa inaad ku xisaabtantaa oo marka ay yaryaraayeen sidii aad awaamirta u siinaysay u lahayd sidaa yeela arrinku maaha qofkii wuu soo koray ha soo koro mas-uuliyadna waa inaad dareensiisaa nooc min alxurriyana waa inaad dareensiisaa tawjiihaadna waa inaad siisaa markaa aniga waxa ila fiican kan baa waxa igula fiican kana waxa isugula fiican wax sharxays aad qancin karaysid intaa kadib ayaa waxaan leenahay al-i'timaadu cala allah ilaahay inaad u tala saaratid أنبيادي محي كو دعينيس نبي إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء حولها النبي إسماعيل مركو لا سعودي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك واصلح لي في ذريتي مؤمن في سورة الأحقاف إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما دعاء إلهينا إناد بديسيت قلوبت waxay ku jirtaa gacanta rabbi haddaba waxaan ku soo koobayaa haddiiba aynu nimi dhul multicultural waxa weeyaan dhul afaf badan diimo badan dhaqamo badan ay meesha yaalliin oo iska soo horjeeda waan isku wax qiimaynaynin asaad rabto inaad ku noolaato oo dad ku korsatid waa inaad yeelataa awooddii u dhigmi lahayd inaad maxay
bulshada iyo dhaqanka iyo afka inaad ka hortegi kartid oo ugu horeyso afkiina inaa ilaalisaan war af ingiriisi maaha cilmi af ingiriisi cilmi maaha af walba dadkiisa cilmi ka dhiga cilmigu waa wax lagu guro afafka erayga waa la ballaadhiyaa waana la yareeyaa laga yaabaa haddaan nadka gashaan muxaadaradan kaga warramayo luqada inay cilmi tahay inaanay cilmi ahayn iyo af soomaaliga inaan laga fiicnayn aan ku tilmaamayno laakiin waxaan uga jeedaa un afka waa kow inaa ilaalisaan labana waa inaa muctaqadkiina ilaalisaan ilmahani maalin kasta iskuul buu tagaa iskuulka ilxaad baa lagu dhigaa wixii la doonaa lagu dhigaa waxaa waa inaan hadhow ka shubi karnaa laakiin haddiiba aynan laba hadli karin si aad uga shubi haddiiba aynan iskuba af ahayn wadaadka masaajidka jooga haddaana iskuba af ahayn say isu fahmayaan yani ilmaha iskuulka tegay shubahaat ilxaada maalan atheism waa courseska ugu badan ee iskuullada iyo lagu dhigo si indirect iyo jaamacadka iyo waxa kan shubahaadkaasi ilmaha markuu soo galo yaa ka saaraya isna iskuma filla wadaadka masaajidka jooga isafgaran maaya adiga isafgaran maysa yaa ka saaraya markaa waa inuu diin laawan noqdaa markuu koro afkani waa wixii diintan sidee lagaga saarayay haddaad ii keento isagoo af soomaali garanaya ay shubha nooca ku saabsan insha allah waan ka daweyn karaya laakiin af kale waan kaga daweyn karaa ma jiro af kale oo intaanu isku fahamno uu kaga dawoobayaa ma jiro adna waxba kama daweyn kartid iskuulkii loogu dhigayna waad ku sii wadaa oo lacag baad weliba kaga sii bixinaysaa subax walba intaad dar u sii xidhaa baad leedahay soco oo sii tag iskuulka ayaa jaamacaddaaba tag idan ayuha alaxiba maxay carabtu gabaygoodii muxuu ahaa intuu laba diblo u xidhay buu badda ku riday markaasuu yidhi war hooy ha qoyin caqliga may gashaa qof intaad laba diblo u xidho badda ku tuurtid oo tidhaahdeed maxay iyaaka iyaaka waxaan kaaga digayaa adiga iyo qoyaankaan idin kala digaya haddaad tidhaahdo yani ilmaha ilaahay baa u abuuray inuu waddadaana qaadi karo laakiin fi axsani taqwiim baa ilaahay u abuuray khayrka inuu maraa adnaa shay baa lagu marsiin karaa laba professor oo iska soo horjeedaa hadday helaan ka khayrku raacaya qulaamkii sixiroola iyo raahibku heleen iyo mu raaca laba cilmo kala gedisan baa lagu waday midna gaalnimo yahay midna islaamnimo yahay laakiin hadduu ka islaamnimadu abkam yahay ka waran afla' yahay ka islaamnimadu hadduu afla' yahay waanay tawaasuli karinba xidhiidhi karinba ilmaha iyo waalidku ilmaha iyo imaamka masaajidku ilmaha iyo sheekhu haddaan xidhiidhba ka dhaxayn karin aanay wada sheekaysan karin uu culays dareemayo intuu adiga kula joogo sababta waxa weeyaan adaa dayacay afkiisii cidda afkan laga rabay inay bartaa waa adiga cidda la rabay guriga inaana af soomaali mooyaane wax kale lagaga hadlayna waa adiga diintiisii inay dayacanta cidda u sababkii markaa waa adiga marka waxaynu u baahan nahay war cilmi weeyaan sida ilmo loo kabciyo lisanskaa qaata gaal iyo muslimba waad ka bara muxtawaha kala gedisan muxtawo waa maxay yani kuugnimadu waa farsamo soo maaha laakiin xaaraan iyo xalaalba waad karin kartaa soo maaha waa farsamo kuugnimadu ninka kuuga ah haddaad wax xalaala u dhiibto wax macaan buu ka soo tuuraya doofaar iyo in xaaraana haddaad u dhibtana wax macaan buu ka soo tuuri karaa dhadhanka wuu macaanayn karaa nimaan farsamo yaqaan ahayn haddaad xalaal u dhiibto muxuu ku siinayaa buushun buu ka soo tuuri de waxaan dhadhan lahayn inkastoo wuxuu walaaqaya ay xalaal ahayd laakiin qofka la siinayo kama degayso inuu wax xalaal isaga cuno mooyaane dhadhan male lagu cuno idan markaan idin leeyahay wuxuu waa cilmi waxa weeyaan wuxuu waa farsamo ka mid a farsamooyinka aadanuhu barto pedagogy waa farsamo ka mid a farsamooyinka aadamuhu barto sida wax loo kobciyo wax loo barbaariyo dadka badhna tajribadii aadanaha caadigaaba isku siin jireen dadka aan wax qorin libaaxu midkiisa yar libaaxun buu aakhirka ka dhigaa soo maaha laakiin keligii baa watee daayarra kuma daro isagaa wata ilaa iyo intuu libaax ka noqonayo isagaa tababara meel kasta kala booda farsamadaasoo ka bartaa siduu u daba socdo waxa ka bartaa
adigu waxaad rabtaa inuu libaax noqdo daayarana waad ku daraysaa oo dee ma wadatid cid kalaa wada idan can ariiqi tajriba markaa kuma qaadi karo maadaama tajaarib kaloo badan uu helayo wuxuu u baahan yahay can ariiqi tacliimna in lagu siiyo marka kale muxaakaa qura iyo talqiin quri kuma filla ee wuxuu u baahan yahay farsamooyinkii waxbarashee tirada badnaay oo dhan wasaa-ishii la adeegsadee tirada badan oo dhan in la maro marka aniga darsigan oo dhan dantan ka lahaa waa hal un inay ay fahamtaan inaad fahamtid bini aadamku inuu xoolaha marka hore ka qaalisan yahay oo waan shaqaynayo waan mashquulay inaanay sax ahayn marka labaadna inaad ii fahamtid tarbiyadu cilmi la bartay inay tahay oo haddii aynu baranno ilmahan ku tijaabinana inaynu ku guulaysan karno walow aan ku nool lahay meel qaldan haddaynan farsamadaa baraninna inay eedo inagayna raacayso mas-uuliyaddu inay inagayna raacayso ilmahana uu geed hadduu meel ka baxo uu qalloocdo ma ninkii beeray baa la canaananaya mise geedkaa la canaananaya soo maahay ninkii beeray ee toosin waayey ee baalkan hagaajin waayey geed kasta waa la toosin karaa geed kasta meel kasta uu ka baxo waa la toosin karaa haddii uu farsamo yaqaan haylo haddii laakiin halkaa inta laga baxo dabaylaha loo daayo ay dabayle xaggaa u wado oo geed kale ku baxo laantaba qabsado deetana uu xaggaa u qalloociyo dee geed qallooca baxaya ilmaha kan haddaad badda dhigtay oo waxaasoo dhamme ay ku socdaan najaasada kugu duushaa hadday yartahay maxaa ku filan koob yaroo biyo ah soo maaha laakiin haddii qasabad najaasi kugu socoto ka waran waa in dee dhowr qasabadood oo biyaa la raaciyaa si ay u tahaaroobi karto meeshu haddii kalema tahaaroobi idan halkan juhdigaynu carruurta ku bixin jirnay xaggaa markaynu joognay mid ka badan baynu u baahanay marka cilladu maaha inaynu oyno oon idhahnaa carruurtii baa luntay carruurtii baa afkii ka lumay carruurtii baa war waxani waa shaqadeeni iyo innagaa shaqadeeni kasoo bixi weyna aan isku qancinno marka koowaad waa marka labaadna keli kagama baxayne aynu ururnimo iyo inaynu midowno isku qancinno waa marka saddexaad inaynu baahida dhulkan aynu joogno inaynu u midowno iskuulladeenna inaynu inagu yeelanno masaajideenna yeelanno xaafadahaynu degeenna yeelanno dad jira inaynu noqonno dad jira oo dad hayn kara inaynu ahaano haddii kale waxaad noqonaysaa warshadaha ugu fiican ee bini aadamka soo saara laakiin dad kala biiriya imika yurub iyo north america iyo maxaa dadka loo qaataa way dhali waayeen waa xaqiiqa jirta way dhali waayeen waxaana la hubaa inay dowladahoodu burburayaan sida ay iminka yihiin hadday ku socdaan waa sida iyagu buugaag iyo research iyo t v wax walba ka soo daayeen waayo ma jiro waddan nin cadi ku nool yahay waxay dhahdaan in dadku sii jiro waa 2.1 inuu reeshiyadu gaadho 2.1 macnaheedu waxa weeyaan boqolka qoys 100 nin iyo 100 gabdhood soo boqol qoys maaha waa 200 qof labadaa 100 qof bay dhahdaan ugu yaraan waa inay dhalaan 210 qof markaasuu dadku joogto noqon karaa hadduu intaa ka yaraado dadku hoos buu socdaa talyaanigu hadda 1.3 buu marayaa that means labadii 100 qof ee talyaaniga waa 130 bay dhalaan labadaa 100 markay dhintaan maxaa bedelkooda jooga 130 waddanada qaar 1.25 bay marayaan waddanada yurub ugu sarreeya 1.8 bay marayaan 200 kastoo dhinta 180 qof baa bedelaya that means tiradii ay dagaalkii labaad ee dunida kaga baxeen hoos bay usii socdaan ciwadkiimee markaa waddanadani way burburayaan bay go-aan ku qaateen haddaan dad la helin dadkiina feminism group iyo idea aynu ka dhaadhicno dhali waaye in ilmo dhalaan dhib bay noqotay mid nooloo ordaya iyo mid aan shaqo kale inoo qabanee dhala waa inaynu keennaa baa la yidhi marka warshadaha dhasha ayaynu nahay ee yurub la geeyo soo saa ma ogdin warshadaha soo dowladdu ma laha warshad qalabka u soo saarta dadka warshada soo saarana soomaalida ka mid ah 6 dhal 7 dhal dabeetana ha la gurto waa maqashaan carruurtii waa la qaatay kuwa maaha kuwa aan qaadanina dee waa hadiya aynu soodii u siinay way kori uuna way ka mid noqon akharka way koriya way ka mid noqon marka waa inaynu kala doorannaa inaynu noqono warshadihii dalalka kale dhasha ay u haysteen carruurta u dhalaya kadeedka iyo dhasha watay ee markay koraanna dadka kale ku biirinaya iyo inaynu noqono dad jiraya oo af iyo dhaqan iyo diinba raba inay jiraan dadka kalena raba inay bedelaan oo diintooda gaadhsiiyaan
dadka kalena raba inay bedelaan oo diintooda gaadhsiiyaan. doorashadu waalidka u taalla, carruurta maaha. waxba yeena carruurta maageen. carruurtii baa hadlawday, carruurtii baa jeelasha ka buuxda. waa sax, yurub markaad joogto tiradaan ka nahay iyo tiradaan jeelasha ka nahay wax inaba isu dhigma maaha. bulsho ahaan tirada 1% kama nihin, jeelashana percent fiican baan ka nahay. xataa meelaha waalidaynu percent fiican ka nahay, waayo markay dawakeen ee noloshiina gaadhi waayeen baa buuf isku wada dhacay, wada waasheen. tirada daraga iibisa percent fiican baan ka nahay. waxaasoo dhammi maxay sheegayaan? carruurtii baa xumaatay miya? maya, waxay sheegayaan mas-uuliyad darradeennii waalidiinta, jahligii waalidiinta haystay. qaarna waa dadaaleen, laakiin waddo qaldan buu la dadaalayay, isna dhimay, carruurna ma hayo. inina marka horeba mas-uuliyadda may qaadin oo xilkaa ismay saarin. haddaba haddaad rabtaan inaynu qaranguurana, dee aan halkaa ka wadno, dadkana u dhallo, guurkana badino, carruurtana badino, 1 iyo 8 iyo 7 u dhallo, 4 dumarana guursanno. laakiin dad kalaynu badin. markaa Soomaaliya joogteen ee laandheeraa sheeganayseen baaba la qaato, tolkaabaad badinayseen. iminka tol kalaad badinaysaa, wallaahi tol kalaad badinaysaa. inaanu tolkaan ahayn xataa kaad badinaysaa. aniga risaaladaydu waa intaa. waar waa waxba idinka maqane raadiya. wasalaamu calaykum.